mar labaad waa soo laabday waa salaamantihiin horta waxa waaye maanta canjaladaan soo liqay ma gaarin meeshii aan rabo gurigaana gaarin canjalad maa soo liqday ay yidhaheen mugta markaa gabarta warkeediya idin dhegeysiyaa suga jir ahaan foolxumo noqon lahay xataa waxaa qarsato waxaa la yidhi waa ku qarsanaa aniga ma qarsado keyga asguliistaan inta idi imaaday shal may ahayd aydidaha iigu duceeya walaalayaalow dad muslina tiin oo soomaali aan isku nahay oo haddana muslim iigu duceeya af wanaagsanaa idinku jirto waa intaasoo cunuga daroogada iiga jeestaahay taas is no problem awlaada allah noo barakeeya ratigeena annagaa ku furanay yurub annagaa ratigeena ku furanay fahmi inaan ratigeena yurub annagoo ku furanay aan waxaan u baahannahay inaan weli kusii xarakoonaan rabnaa adiga waa ku xarakoon la'dahay ratigaagiyaa ku xarakoon la'dahay aniga ratigaygay aan yurub ku furtay yaa ayaga asagoo aasguliiste oo ibiilaan aan ku xarakoodaa ma samayn kartaa adi ma samayn kartaa maya halaasaan kusoo koobaa horta gabartaan warkeeda gabartaan beejka aan isku aragnay inuu qolkeyga ahay inuu qolkeeda ahay inuu qol kale ahay ma ogi qolka isku aragnay gabartaan waaye gabartaanne qolkayna waa soo qabsan jirta hadda waayahan ma soo qabsato adigana haddaa u tagto ma ku soo qabato okay gabadhan dhibaatadeeda ay soo bandhigtay dhibaatada marka aan ka hadlaayo marka aniga dhibaatadeyda soo bandhigo adiga xaq maa u leedahay inaa owlaada caafimaad adiga ilaahay ku siiyey oo ku baashaaloweyso oo waxaan ku dhaha ku dheedheeloweyso oo waxaan ku dhaha ku tataxaashayso ilaahay subxaana wa tacaalahay ishi intaa biriq siinin inuu xanuun ku imaan kara ma ogido xanuunka inuu ilaahay keeno yaa ee adiga caafimaadka higa laguu siinin oo adiga waa taad jirada dadka ku caynaysee gabartan walaashaa hadday itixaan marayso ay dhibaataysan tahay adiga xaq maa u leedahay inaad caayso adiga hadday iskuu kaatoosan tahay oo gurigaaga nadiif kuu yahay oo lacag bangiga kugu jirto oo caafimaadaad ku shaqaysato heshay adiga xaq maa u leedahay inaad walaashaahoo dhibaataysato ku digato inaad meel u soo fadhiisato oo codkeeda soo qaadato iidoo iska dhibaataysanoo iska hadlayso qofta markay dhibaataysan tahay ma qorto waa lagu yaab maba jiraba ilaahayga subxaana wa tacaalaha ayaa kan keenay yah dadka hadda maadaaman oo anaga ilbaxoweyno sidii aan iska dugnay anigaan biriga xildhibaanada meel iga fariisto biriga ka hadla arrimahayga biri ka maalin naagta ila diriirta anay isu cayhaysa waxa ilaahay ii qoray inaan maro yah adiga xun saas u taalo oo waxaan ku iri ilma aadale aad tahay oo waxaan ku iri saan aad u taalo aniga waxaala iga dheeri hal naf kaliyaa leena ilaahay qofta owlaad siiyey la sharfay waxaan ku dhaha guri tagtay raaxaysayso yah inaad ku tiitiigato oo tiraahaa aniga laandheeraa ahay laankaanaaba iyiroosha aniga habeenka go-e rif laanka waa taqaaniin meesha ku yaalo maxaa iga fiiraysiin wallaanka waa taqaaniin xaasinimadan iyo xuqiga iska daaya aniga waxaan xasuustaa yah
in been aniga hadda ka hor layga sheegay xanuunka ay leedahay beenta dadka laga sheego dhibaatada ay leedahay dadka beenta laga sheego oo la yiraaho saaraa ku dhacday kuwaysi sheegine saasaa la yiri ma ogidin miya waryaa kaleexda gabdhaha ayaka iskood stresska u hayo haddaa adiga nin aad guulaysata haysato haddaa adiga haysato ilmo kuu caafimaad qabo haddaa adiga caafimaad qabto dadka bini-aadanka ha ku jeesjeesi waxaa laga yaabaa adiga oo saas u caafimaad qabto oo codadka soo qaadashowhayso caayowhayso inaa biri ka maalin iyada ee caafimaad hesho ee dhahayso ducadah layguu soo duceeyo wiilkeeda oo inuu u caafimaado adiga dhibka kuu imaan doono oo aga dambey doonta maxaa ku ogtahay yaa kuu saxiixay for lifekaada inaa caafimaadkan ku dhahayso inaa haysayso war soomaaliyay xumaan iyo xuqd iyo xaasinimaa idinka buuxdo hindiya nin kala keenay hindiya dadka ka yimid xaasinima ee qabsatay saas lugaha iyo gacmaha iyo waxaan ku iyo tuurta iyo waxaan ku dhahay saanqaadka idinka gashay waxaan ku dhahay qaybta xaasinimada inaa idinka gubo anaa layga rabaa qaybta ficilka foosha xunne ee walaashiin aad ficlaysiin inaan idinka gubo anaa layga rabaa qaybta waxaan ku dhahaa owlaada islaameed aa u diri joogtiin in ka gubana aan layga rabaa aclaa qasfaa jirkaatingu yahay owlaada islaameed amaan siiya amaan owlaada ilaahayaa abuurtay owlaada amaan siiya cunugaada wiilkaadoo kale kasoo qaad gabadhaadi oo kale kasoo qaad aniga anoo 40 sano jiraa lagu guursaday adigana 15 sano adoo jirtaa lagu guursaday waraa isku meel ma naqan karnaa inkaas waxay leedahay anaa kuraa waryaa aniga waa iga weynta intaa iga weynta 40 sano iyo 15 sano misleedahay yaa 25 sano u dhaxayso cunugayga 25 jirka ahaa in aragta hartaa inaan shukaasato war waxaan sheegaa adiga ilaahayaa kuu qoray inaa 40 ku guursato anigana ilaahaa ii qoray inaa 15 ku guursato kala soo qabo anoo 40 ku guursaday adigana 15 ku guursata ilaaha kuu qoray anigana ilaaha ii qoray waa ina ilaahay ku abuurtaa ku qanacsanaata macnaha caayda iyo aflagaadada iyo gifka maxaa lagu helaa hadiyo ma lagu helaa faa'iido ma lagu helaa caafimaad ma lagu helaa maxaa lagu helaa ii sheeg doqon yahay